waan idin salaamay. Ma aragtaa mararka qaar in WhatsApp, Messenger ama Telegram aad qof ka salaanto isla markaana ay ku soo dhacday jawaab degdeg ah taasoo isugu jirta in salaanta laga qaaday iyo in lagu mahadceliyo. aan ku jilciyo hadalkayga. Macallimiinta koorsooyinka online-ka ku bixiya waxay ogeysiiska koorsooyinkooda ku soo bandhigaan baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo wixii la midka ah. Si aan ula xiriirnana waxay qaybta hoos ee ogeysiinta noogu dhaafaan lambaro ka oo hoos ay ku soo qoraan nagala soo xiriira dhanka WhatsApp-ka. Markaan WhatsApp-ka kala xiriirnana waxay isla markii noo soo diraan fariin aad u dheer taa oo isugu jirto information-ka koorsada haddii ahaan lahayd sida fiiga loo bixiyo haddii ahaan lahayd muhiimadda koorsada ay leedahay iyo wixii la midka ah oo markaas koorsada khuseeya. muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa sida loo diyaariyo qoraalkaasi dheer oo markii dadka ay ku soo weydiiyaan information adigoon isdhibinba ay isla markaa jawaabta u tagto sidaana aad markaas bulshada aad ku kala nasataan. haddii aad danaynayso muuqaalkan adigaan ku duube daabasho wacan. waxaan u baahannahay marka ugu horeysa inaan la soo degno application-ka noo fududeyn lahaa cashirka hore ee hordhicisaan idinkugu soo sharxay. application-kaas waxaa loo yaqaanaa what is auto reply oo loo soo gaabiyo what is app automatically reply. markaad Google Play Store-ka timaad qaybta searching-ka waxaad ku qoray what is auto reply. marka qorto what is auto reply wuxuu ku soo qabanayaa application aad u tiro badan saad u jeedaanba. marka waxaad ka xulanay midkan waa midka u baahannahay kan labaad aad ka xulanay. markaad ku xulid kadib aniga saad u jeedaan buu install gareysan yahay open bis ay dhiman waa open gareynayna marka barnaamijka san hore ugu shaqeyno open ayaad leedahay markaad open gareyso daaqadan ayuu ku soo saarayaa. si application-kan uu u shaqeeyo marka hore waa inaad enable gareysaa enable aad leedahay. qaybta hoosna waa qaybta aad ku diyaarsan lahayd xogta markii wax lagu soo diro salaan wixii aad markaas ugu jawaab lahayd wixii oo yani isla markii wixii oo dirsama lahaa wixii aad ku jawaab lahayd waa qoraalaha hore soo qabtay aan ku baast gareynaa animation waxaan soo qortay mudan way soo gaartay fariintaada mahadsanid anaa ku soo qaban doono insha Allah waa wax ii diyaarsan qofku markuu isu salaam intaas ayaa u dhaceyso. qaybtan telefoonka ayaan tagaynaa. qaybtan telefoonka hadafkan u tagayna waxay tahay sidoo kale geedkan wuxuu leeyahay WhatsApp business iyo WhatsApp caadi ah ugu jiraan midka rabtid yani fict saaranay WhatsApp business aan fict saarnaa asa yani dad kasta WhatsApp business iga soo salaamo fariinta had u jeedin ayaa u dhaceyso. haddii aad Messenger-ka haddii aad samaysto asna waa fict oo saari kartaa. marka intaad ka soo laabto waxaan imaanaynaa contacts-ka u jeedaa wuxuu leeyahay everyone qof walbo isu salaamo fariintan u dir waay. meesh kale my contact list dadka telefoonka yani lambarada u jiro markay isu salaamaan bis u dir. qayb saddexaad accept my contact list dadka ay ugu jiraan telefonkeyga markii laga reebo qowdada ka reebanay dadkaas u diri kartaa guriga ogolaan kartaa sidoo kale waxa ogolaan kartaa dadka telefonkaaga bis ku save gareysan. inta kadib waxaan tagaynaa saddexdaas ilig setting ayaan tagaynaa. meeshan hadafkan u galeen waxay tahay mararka qaar waxaa dhacday in WhatsApp-ka markuu qofku soo salaamo u jawaabtid jawaab u dhacay mar labaad uu ku soo salaamo jawaabteedna isla markaa inay laabato waatana meeshan waxa qoran reply continuously sidoo kale time delay iyo waxa ku qoran reply once midka u dambeeyay fict saarnayna marka sababtu midda dambeeyay fict saarnay waxay tahay qofka hal mar markuu assalaamu calaykum ku soo diro fariinta hal mar ay u dhacay. qaybta labaad oo time delay qorto waxay tahay inta second oo ka maqnaanay marka qofka assalaamu calaykum uu soo dhaho 2 second 3 second 4 second waxa aragtay ka dhigi kartaa anaad 2 second ay saaran sidoo kale intaan fict saarnay. qaybta hoose fict saarnay qaybta kalena waqti ku save gareysatay. hadda marka WhatsApp-ka caadigan tijaabinayna WhatsApp business-ka aan qofka salaamaa wixii soo dhacay fiirna marka TST ay ugu qoran tusaale meesha waxaan ku qoray assalaamu calaykum aan u diraa WhatsApp-ka caadiga aan u diraa assalaamu calaykum WhatsApp-kayga caadiga midka waxaan u diri rabaa oo WhatsApp business-ka wuxuu isu jawaabaan fiirna marka fariinta markay baxdo kadib waa laba fic oo saaro isla marka waxaan ka sugaa jawaabaan ka sugaa fariinta weli ma bixin waa ka jawaabta ay soo dhacday mudan way soo gaartay fariintaada mahadsanid anaa ku soo qaban doono. waa intaas wax kale oo dheeraad ah ma jiro. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar haddii uu video ku qanciyana like saar si share garay mahadsanid.